somalilan ha noolaato cadowgu ha dhaco ciidanka qaranku ha noolaado gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowlaha arrimaha gudaha badhasaabka gobolka xildhibaanada labada gole meeyarka degmada madax dhaqameedka dhammaan marti sharafta sareeyaasha saraakiil xigeenada aliftayda iyo dabaleyda dhammaan hay'adaha dariska u xidhan ciidanka qaranka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin farxadeed waa maalin aynu goobjoog ka nahay xidhitaanka kumanaan ka tirsan dufcaddii koowaad ee tababarku u soo xidhmay dugsiyada bariga oo ay ku xigi doonaan dhammaan dugsiyadii kale usbuucyada soo socda ugu horrayn waxaa iga guddoontaan salaan aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida salaan ka turjumaysa ixtiraamka iyo kalsoonida buuxda ee uu idinku qabo mudanayaal ciidanka qaranku halka uu maanta joogo waxay ku soo gaadheen nafhurka iyo hagarbaxa madaxdii kala dambaysay ee dalka iyo ciidan qaranka soo maray madaxweyneyaal taliyayaal haliyeeyo inaga mid ah oo nafahooda u soo huray dhismaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan jiilba jiil buu ka dhaxlay maantana waa maalinteennii waxaad tihiin ciidan tababar leh nidaam iyo isla xisaabtan waxaad taqaanaan waajibaadkiinna waxaad isku tixgelisaan amarka iyo kala dambaynta ee idinkoo raacaya xeerarka iyo shuruucda ciidamada qalabka sida waajibkiina koowaad ee idiin yaallaa waxa weeye ilaalinta diinteenna dalkeenna dhulkeenna iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan waxaad tihiin seefaha jaraya cid kasta oo isku dayda inay xasoolino darro geliso somalilan gacan kasta oo khatar ku ah qarannimada jamhuuriyadda somalilan waxaad tihiin seefihii jari lahaa kuwaas farxadda koowaad ee aynu maanta dadkeenna ugu bushaaraynayno waa inaynu nahay ciidan hal adayg leh diyaarna u ah waajibaadkiisa inuu guto si karti leh firfircooni leh gardarro iyo daandaasi innaga laynaguma yaqaano ee laynaguma xanto degdeg waxaynu mar walba ka turjumaynaa dareenka shacabkeenna iyo qarannimadeenna jamhuuriyadda somalilan marna kama gabanayno inaynu gudano waajibaadkeenna difaaca qaranka jamhuuriyadda somalilan mudanayaal ciidamadeenna qaranka jamhuuriyadda somalilan maraaxiil badan buu soo maray isagoo intan ka awood yar ayuu difaacay dalkiisa maantana warwar kama qabno inaynu cid kaste oo isku dayda inay daandaansi ciidanka qaranka iyo dalkaba soo saarto inaynu iska difaaci doono sidaynu ognahay dalka waxaa furmay albaabkii ictiraafka taas oo ku timi geesinimadii kurdhacii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aynu maanta halkan uga mahadnaqayno qaranka oo dhanna u wada mahadnaqayo ictiraafka layna ictiraafay muu ahayn hadiyad ee wuxuu ahaa hadiyadii dalkan usoo naafoobay usoo dhintay usoo dhabar adeygay midhaheedii buu ahaa xinjir baa usoo qubatay ee maynaan ku helin xodxodosho waa run xaqiiqadu waxay tahay kubaynaan helin xodxodasho xinjir baa loo qubay waa run heestaasi maantay ay taagan tahay waxaan maanta laba kelmadood leeyahay walaalaheenna muxuu ahaye degmada ka tirsan gobolka sool degmada maasacaanood walaalayaal
waxaanu leenahay dhulku ma guuro oodkaa dheerna kuma dhaxan tirto wax kasta oo dhexdeena yimaada nabad baynu ku dhammaynaynaa Somaliland ciidankeeda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ciidna duulaan kuma aha sidii siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ay ahayd Somaliland nabad baa ay ku wada noolaanaysaa waxaan u sheegayaa qolada muxuu ahaayay ku soo dhuumatay diyaaradana waxba ka bedeli mayso imaatan aad timaado degmo Somaliland ka tirsan adigoo oo 90% meeshii aad xukumaysay aanad maanta tagi karin wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jirtaana ku biyacaba mudanayaal ilaahay mahadi waxaan anigu maanta taliye ka ahay dhulka iyo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ee maanta nabadda ku naaloonaya oo 1 kiiloomitir oo laga soo bilaabo Lowyacado ilaa Sool oo maanta joogo aan ku soo maray dhulka gaari tuulo kastana aan soo istaagay sidaan doonana aan ku soo taxtaxaashay laakiin maanta hadii la weydiiyo qolada koonfureed intee in leeg baad maanta gaari ku socon kartaa Soomaaliya gudaheeda su'aasha iyaga u daynayna waa inaynu ka sugaynaa insha Allah ciidanka qaranka Somaliland waxa ay leedahay waxaan u sheegaynaa inay leedahay ciidan hal talis leh hal madaxweyne leh hal wasiir gaashaandhig leh oo dhammaantood ay amarka ka sugaan saddexda kala sareeya laakiin iyagana waxa la weydiinayaa imisa ciidan bay leeyihiin imisa dalba kala xukuma imisa cid baa u kala talisa imisa amar bay kala qaataan iyaga su'aashaana la weydiinaya beesha caalamkana waxa uu sheegaynaa inay Somaliland اعترافkeedu uu ku soo kordhinayo mandaqada geeska Afrika iyo mandaqada aynu ku noolahayba xasiloonidii hore u jirtay iyo kala dambeyntii iyo horumarkii uu ku soo kordhinaya اعترافka la اعترافay taas ayadana u sheegaynaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan saraakiisha maamulka dugsiyada tababarka macallimiintii tacabka galiyay ciidanka maanta midhahan in hor jooga ee naftoodii u huray waxaan leeyahay ilaahay baa idinka abaalin doona abaalka qarankiina u gasheen guul baana idin rajaynayaa dhammaan ciidanka qarankana waxaan ugu bushaareeynaa maanta waxaad joogtaan dal la اعتراafsan yahay hadaa shalay toolo aad joogtaan dal aan la اعتراafsanayn maanta waxaad joogtaan dal la اعتراafsan yahay waxa ugu horeeyay dhismaha la gelinayay ee kor loo qaadayaana awoodda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland weeyaan taa ku bushaareysta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh